رضي الله عنه قال wuxuu yihi qaala rasuulu الlahi rasuulkii alle wuxuu yihi salى الlahu عalayhi wasalam laa tashrabuu ha cabina fii aaniyati الdahabi wاlfidati weelasha qalinka ah iyo kuwa dahabka ah labadaba waxa ku cabina walaa ta'kuluu hana ku cunina fii sixaafihimaana ha ku cunina weelasha dahabka ah iyo kuwa qalinka ah fa innahaa ayagu weelashaa lahum waxay ku leeyihiin waa gaaladii fi dunyaa adduunka walakum fi laakhira idinkuna aakhiraad ku leedihiin aakhiraad ku cuni doontaan kuna cabi doontaane adduunka iska daaya muttafaqun calayhi xadiidku wuxuu tilmaamayaa weelasha qalinka ah iyo kuwa dahabka ka samaysan wax ku cunitaankooda iyo ku cabitaankoodu waa mamnuuc dadka mu'miniinta ah waa loo diiday sidaa darteed baa ilaahay ugu talagalay qiyaamaha inay markaa ku isticmaalaan laa tashrabuu waxa ku cabina fii aaniyati dahabi weelka dahabka ah waalfidati iyo midka qalinka ah labadaba walaa ta'kuluu hana ku cunina fii sixaafihima saxamadooda saxamada ama weelasha laga sameeyey dahabka iyo qalinka labadaa waxa ku cunina hana ku cabina fa innahaa maxaa yeelay weelasha lahum ayagu waxay ugu sugnaadeen oo ay ku leeyihiin waa kaafiriintee fi dunyaa adduunka walakum idinkuna waxaad ku leedihiin fi laakhirati muttafaqun calayh daartaan daartii adduunka waayo noloshiinnii iyo raaxadiinnii way idiin dambaysaa wax allaala wixii xalaal ahood ku raaxaysan kartaanna idinkay idiin sugnaatay oo adduunka waad ku leedihiin maalinta qiyaamana khas bay idiin tahay muttafaqun calayh wa can ummi salama radia allahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuulu llahi rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam aladii midka yashrabu cabahaya fii inaa'i alfidati weelka qalinka ah dahabkana waa la mide innamaa yujarjir wuxuu kaga qurjucsiinayaa fii batnihi calooshiisa naara jahannama naarta jahannamo muttafaqun calayh jurca waxaa loola jeedaa waa shanqarta ka soo baxda qofku markuu biyaha cabahaya dhuuntiisa ka yeerta qurjucda iyo mtaqaanaa qurjucda iyo wixii la mid ah dhawaaqa iyo cabitaanka uu dhunjinayo mar kasta waa naar jahannamo jahannamo naarteeda ayuu ka juqjuqsiinayaa ka qurjucsiinayaa oo dhawaaqa saa uu ku ridaya mar kastoo qurjucuu siiya calooshu ay ku dhacayso naar jahannamo waa oo macnaha naarta jahannamaa lagu cadaabayaa naar jahannamo ayuu leeyahay weelkaa qalinka ah iyo midkaa dahabka ah labadaba waxaa la leeyahay iska ilaaliya dad mu'miniina haddaad tihiin aladii yashrabu fii inaa'i alfidati weelka qalinkaa midka wax ku cabahaya innamaa yujarjiru wuxuu kaga shanqarsiinayaa qurjucda iyo qurjugtaa dhacaysee yeeraysa fii batnihi calooshiisa dhexdeeda naara jahannama naarta jahannama muttafaqun calayh xadiidkaana kii horuu markaa adkaynaya inay mamnuuc tahay in qalinka iyo dahabka la isticmaalo can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cabbaas qaala rasuulu llaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa dubiqa haddii la magdeeyo alihaabu haragga ama maqaarka faqad tahura waa taahir taahir buu noqonayaa oo taahir waayo maqaarka haddii la magdeeyo akhrajahu muslim baa xadiidka soo saaray wa cinda alarbacati arbacada agteeda waanu soo tilmaanay arbacadu hadduu yidhaahdo waa afarta sunankii abi daawuud tirmidi nisaa'i ibni maaja ayumaa ihaabin ihaab walba harag walba iyo maqaarkii dubiqa marka la magdeeyo neefkii laga soo saaray haddii uu dhintay iyo haddii marka uu nool yahay ayumaa ihaabin dubiqa waa taahir
haragga waxaa lagu daahiriyaa oo lagu nadiifiyaa oo daahir ku noqdaa waa in megad lagu sameeyo. weliba mar allaala markuu dhogor bannaanku ka leeyahay cusbo iyo waxyaabo kulul iyo dambas iyo waxbaa loo isticmaalaa. saa darteed baa aragga iyo waxaa duftee korka saara looga qaadaa. megad saasaa loogu sameeyaa. haddii maqaarka la megdeeyo waa daahir. daahir buu markaa noqonayaa. qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, idaa dubiqa haddii la magadeeyo alihaabu, ihaabka waa haragga ama maqaarka. ihaabku waa mar allaala markuu dhogorta dushu ka leeyahay, faqad tahura, markaa waa daahir. daahir ayuu noqonayaa. akhrajahu muslim. wa cinda alarbacati ayumaa ihaabin dubiqa, maqaar walba oo markaa la magdeeyo waaye. wa can salamata bin muxabiqin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi, qaala rasuulu llaahi, rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, dibaaqu juluudi lmaytati, baktiga ama meydka haraggiisii maqaarkiisa magdaynta la magdeeyo, duhuuruhaa, daahirnimadiisii waayo. saasuu daahirku noqonayaa macnaha. saxaxahu ibnu xibbaan baa xadiiska saxiix yeelo wuxuu tilmaamayaa xataa neef ka dhintay bacdamaa bakti uu noqday oo markaa la diiday isticmaalkiisa, cunitaankiisa, maqaarkiisa inuu daahir ku noqonayo haddii megad lagu sameeyo. haddii la magdeeyo markaa waa daahir oo rasuulku wuxuu leeyahay, dibaaqu juluudi lmaytati, meytada iyo neef ka dhintay maqaarkiisa magdayn la magdeeyo oo lagu sameeyo ayaa daahir markaa ku noqonaya. saasuu ku daahiroobayaa. dibaaqu juluudi lmaytati, meytada maqaarkooda diqaab iyo dibaaq lagu sameeyo la magdeeyo ayaa duhuuruhaa, daahir ahaashadiisa markaa ah. saxaxahu ibnu xibbaan baa xadiiskaa saxiix yeelay. wa can maymuunata radia allaahu canha, maymuuna qaalad waxay tihi, mara rasuulullaahi, rasuulkii allah wuxuu soo maray sala allahu calayhi wasalam bishaatin ridaasoo yajuruunahaa ay jiidayaan. ribaa intay dhimataa waa la jiidaa, waxaa loo sii wadaa qashiqubka. saa darteed rasuulka wuxuu soo maray dad oo rimayd ahoo dhimatay intay qabteen ay jiidayaan, waxaa loo sii wadaa meeshii lagu tuuri lahaa. faqaala markaasuu yidhi, low akhadtum ihaabaha, haddaad qaadan lahaydeen ka warrama maqaarkeeda, haraggeeda maad qaadataan ood ku intifaacdaan ood wax ku qabsataan. low akhadtum, haddaad qaadan lahaydeen ihaabaha, haraggeeda waa fiicnaan lahayd. faqaaluu waxay dhaheen, innahaa maytatu, bakti waay rasuulkii allah, see u qaadanaynaa, waa dhimataye. waata ilaahay diiday, xurimat calaykum almayta, bacdamaa maytadii laydinka xaaraantinimeeyey ilaahay uu yidhi. waxay u qaateen waxeeda oo dhanba inay xaaraan yihiin, sinna aan loogu intifaaci karin. rasuulku mar allaala markii uu yidhi maad ihaabka iyo haragga kala baxdaan ood ka qaadataan, waxay dhaheen rasuulkii allow mayto waaye, way dhimatay. faqaala wuxuu yidhi nebiga, yutahiruhaa, waxaa daahirinaya almaa'u biyo iyo walgaradu, geedkaa qaradka la yidhaahdo. akhrajahu abu daawuud iyo wanisaa'i baa xadiiskaa wariyey. waa geedka maraagga la yidhaahda mirihiisa yaa inta la soo qaado iyo biyo laysu isticmaalo wuxuu noqonayaa daahir. waa megad haddii lagu sameeye la megdeeyo, haraggaan rida haba dhimatee haddii laga soo bixiyo kadibna wax lagu shubtoosaa inta loo magdeeyo loo daahiriyo yaa lagu intifaaci karaa. waxaad doontaan baad ku qabsan kartaan. haddii laydinka xaaraantinimay cunitaankeeda, maqaarka inaad kala baxdaan, biyo iyo maraagta geedka lagu magacaabo mirihiisa waa geed wax lagu magdeeye, haddaad u isticmaashaan waa la isticmaali karaa macnaha. taasuu markaa rasuulku u tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. oo xadiidku wuxuu cabbirayaa ama tilmaamayaa haddii neefka uu dhintay xaaraan inuu yahay cunitaankiisa iyo wax allaala wixii kaloo intifaac kale markaa ah. amaa haddii inta haragga lagala baxo intaa ka bacdi la magdeeyo,
megadna lagu sameeyo in qofkuu isticmaali karo mamnuucna uusan markaa ahayn. amaa haddii waxyaabo kale qofku u isticmaalo shayga meydka ah hilibkiisoo kale iyo wax allaala wixii caddiintiisii wixii markaa la mid ah, saa darteed baa rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu wax badan tilmaamay dadka gobol ka mida sida yuhuuddu inay isticmaali doonaan wax lagu magacaabo tab iyo xeelad. rasuulka markuu diiday waxyaabaha dhintay iyo baruurtooda, rasuulku wuxuu tilmaamay reer bani israa'iil buu yidhi markii laga xaaraantinimay waxyaabaha dhintay baruurtooda maxay sameeyeen? caddiintii intay soo qaadeen bay dhalaaliyeen, saliiddii ka soo baxday ay ka dhalaaliyeen ayay suuqa geeyeen, waa iibiyeen oo waa bec geeyeen, lacagtii ka soo baxday cuneen. annagu ma cunin bay dheen taqaanaa hilib iyo neef dhintay iyo baruurtiisa, laakiin lacag baan cunnay. allah lacanada buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam. xeeladaha iyo tabta noocaasa markaa lama ogola. ama haragga haddii inta laga qaada megad lagu sameeyo, rasuulku waa daahir buu yidhi sala allahu calayh wasalam. akhrajahu abu daawuud iyo wanisaa'iyu. wacan abi haclaba alkhushaniy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah, rasuulkii ilaahayow, innaa annagu biardi qowmin qoom dhulkoodaannu ku noolnahay oon ku sugannahay, qoomkaasoo ahli kitaabin kitaab ehelkii ah. qoom ahlu kitaaba ama waa yuhuud ama waa nasaaro ama waa labadooda. afa na'kulu wax ma ku cuni karnaa fii aaniyatihim weelashooda wax ma ku cuni karnaa? faqaala rasuulku wuxuu uhi laa ta'kuluu fiiha ha ku cunina ilaa an laa tajiduu inaydan helin maahane hayrahaa kayrkeeda. wax kale inaad weysaan ma ahee iska daaya weelashooda. haddiise aad wax kale weysaan ilaa weelashooda maahane faqsiluuhaa iska dhaqa buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam. wakuluu fiiha kuna cuna, muttafaqun calayh. haddii weelashooda ma ahee weel kale la waayo, wax kale uusan meesha oolin, waayo waxaa in badan aamin aan looga ahayn inay khansiirna cunaan, khamrana ay cabaan. koobabkoodu waa badan yahay intay khamre ku cabaan, weelashoodii digsiyaalkooduna way badan yihiin in inta khansiir lagu kariyo haddana markaa lagu cuno. saa iyo cilladaa jirta darteed ha ku cunina. laakiin haddii la waayo ka warrama, wax kale oo kayrkoo ah ama weelasha ahlu kitaabka maahee wax kalea la waayey. hadday xaaladdu saa noqoto ha isdhibine, intaad soo qaadaan weelkoodii dhaqa buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam. iska nadiifiyo iska mayra, kadibna markaa ku cuna. abi haclaba alkhushani ninka lagu magacaabaa rasuulka su'aal weydiiyey. su-aasha uu weydiiyeyna waxay ahayd inuu ku sugan yahay qoom ahlu kitaaba. qultu yaa rasuula allah, rasuulkii ilaahayow baan idhi buu yidhi, innaa annagu biardi qowmin qoom dhulkoodaannu ku sugannahay, ahli kitaabin kitaab ehelkood ah. afa na'kulu wax ma ku cuni karnaa fii aaniyatin weelasho ayagu ay leeyihiin wax ma ku cuni karnaa? faqaala laa ta'kuluu fiiha ha ku cunina. muslimiin baad tihiin, wax xalaal ahoo taybaad quudataan ood cuntaan, khansiirkaad ka fogaataan, khamradaadan cabin, dad alla ateecaad tihiin. ayaguna sidii way sameeyaanoo way ku cunaan wayna ku cabaane, weelashooda waxa ku cunina ilaa an laa tajiduu inaad weysaan maahane. haddii la waayo hayrahaa kayrkeed, weelasha ayagu ay haystaan meehee wax kalea la waayey, faqsiluuhaa iska dhaqa oo mayra weelashooda. wakuluu fiiha kuna cuna gudahooda buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam. muttafaqun calayh. wacan cimraan bin xusayn radia allahu canhu ana الnabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo wa asxaabahu asxaabtiisa tawada'uu waxay ka weysaysteen min masaadatin sibraar oo imra'atin mushrikatin, naag mushrikad ah oo gaalay markaa lahayd. muttafaqun calayh. fii xadiidin طawiil, xadiis dheer buu ahaa. xadiid dheer qayb ka mid ah ayuu ahaayo xadiisku wuxuu tilmaamayaa gabar mushrikad ah oo kaafiriinta ku jirta magaalo ah, weelkeeda yaa rasuulkii asxaabtiisaba biyo ku jiray yay markaa ka weyse qaateen. biyahaasay markaa ku weyse qaateen. idan wuxuu xadiidku tilmaamayaa, horayna waan u soo tilmaanay weelasha
ay gaaladu leeyihiin hana ku cunina hana ku cabina. inta badan weelasha waxaa loo isticmaalaa arrimooyinkan soo tilmaannay. ashyaa iyo waxaa jirta waxyaaba sida haalibka aan loo isticmaalin. aashuumada, meelaha biyaha lagu shubto iyo waxyaabaha lamidkaa waa suuragal. haddana waxa haddii la hubo inaysan markaa loo isticmaalin arrimooyinka iyo waxyaabaha noocaasa, qof mushriga haddii uu leeyahay ama xataa warshadahan kaafiriintu ay leeyihiin ama dadka gaalada ah, alaabaha ay soo saaraan ay soo bixiyaan oo kale, la dhihi maayo waa la dhaqayaa oo waxyaaba mataqaanaa najaasi waxyaaba ku jira. laakiin wax allaala wixii hadda aan soo tilmaannay oo kale ah taasuu rasuulku tilmaamaya. haddana waxaaba jiraba meelo waxaa jirtay ayagu leeyihiin khamrana aan lagu iibin, khansiirna aan lagu iibin, shaah iyo cana laga yaabo in lagu gado. qof kasta oo gala maqaayadda wixii uu ku cuno ama uu ku cabana qof kale maba lagu siiyo ilaa in la dhaqa maahani. saa darteed arrimuhu hadday saa yihiin waxaad isku tashdiidood isku adkaysa markaa ma laha. nebiga iyo saxaabadiisa ayuu yidhi cimraan bin xusein, mushrikad gabar ah misaadad ay leedahay ay markaa ka weyse qaateen. waa weel maqaar laga sameeyey, weliba laba xarag marka la keene laysku tolo yaa misaado la yidhaahdaa. weelka noocaas ah oo ay gabar mushrikada lahaayeen. xadiisku waa dheeraa. nebigoo safar ah sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa ayaa waxaa la yidhi meel bay degeen. mar allaala markii meel ay degeen ayaa radii saxaabadii uu dujiyey. nin buu arkay meel geesa iska joogaa oo aan salaada tukanin. maxaa dhacay buu rasuulku weydiiyey. inuu janaabo qabay, biyana uusan haysan buu u sheegay. waa la oomay oo dadkii biyay waayeen, meeshana biyo ma laha. isla cimraan bin xusein kaani cali bn abi aalib iyo rag kale yuu rasuulku dhahay ordaha biyo noo raadiya. waa baxeen oo say biyihii baadigoobkii ugu jireen yaa waxay heleen islaan ama naag rati saaran, laba misaadatayn iyo labadaa sibraarna horay iyo gadaal ay u yaalaan, ayadoo ratiga ay dhexda markaa ka fadhiso, biyana ay markaa ugu jiraan. intay u tageen bay dhaheen ayna almaa, biyo caggee ka keentay? waxay tiri baa la yidhi shalay meel laga soo socday, macnaa shalay baan socod soo bilaabay, ilaa hadda aad ii jeedaan meesha aan maraayo yay biyaha idiin jiraan bay tihi. meeshaasaan ka keenay. dadkii iyo dadkii ehelkii la socdayna waa lucuuqa way soo haleeli doonaan, ayada laakiin way ka soo horbaxday. ilaan shalay meel laga soo socdaa biyo loo raadinaa dhibkeeday leedahay. idan nakeen bay dheheen soo bax, nakeen oo soo bax. xaggee ii wadiin? rasuulka allaan kuu geynaynaa bay dhaheen sala allahu calayhi wasalam. ma midka bidciga la dhahmiyaa bay tihi, saabica, midka diinka cusub la yimid. markaasay dhaheen nacam, saad sheeganaysaan. waa la soo kixiyey islaamtii, nebigaa loo keenay sala allahu calayh wasalam. waa la soo dejin dalba way ka soo dejiyeen, sibraaraydii waa la soo dejiyey. rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi marka ugu horraysa waxoogaa biinta laga soo daray yuu nebigu ku weyse qaatay. biyiibaa intoodii lagu celiyey afka ka xira buu yidhi, meesha dambena waa laga furay. saxaabadii baa loo wacay oo la yidhi kaalaya ka dhaansada, kii qubays u baahnaa, kii raba weelkiisii ibra inuu ku shubto, kii weys qaadan lahaa, kii wejiga dhaqan lahaa, kii janaabada asiibtana rasuulku weel buu ugu shuu yidhi ord qubayso oo ka weyse qaado. intaa biyaheeda saa la yeelaayo islaamtu waa fiirinaysaa, saasay waa yaabantaa wax lagu samaynaya biyaheeda. mar allaala markii qoomkii ay ka wada fuqeen oo biyihii laga wada joogsaday, labadeedii sara waa sidoodii, wax ka nusqaamay ama ka baxay ma jiro. ogow buu yidhi rasuulka ilaahay, biyahaaga inaanan waxba ka isticmaalin, laakiin alla na waraabiyo biyana siiye subxaana wa tacaala. rasuulku wuxuu yidhi gabadha wax u soo aruuriya, qof kasta wuxuu heli karo. kii timir keena, kii daanka keena, kii bur keena, kii wax keena, dhar waxbaa la isugu ururiyey. ratigeediibaa horta loo dhigay oo layidhi intaanna qaado. waa yaaban tahay weli. gabadhii way dhaqaaqday. mar allaala markay baxday dadkeedii ayadoo ka habsaantoo ka daahday yay gaartay. markay gaartay dheenna xaggee ku soo daahday waad jirtay. wallaahi cajiib baan soo arkay bay tihi. niman baa ii yimideen, saa iyo saabay dhaheen, waa i kaxeeyeen oo nin bay ii geeyeen. xaaladdii bay markaa uga sheekaysay. ilaahay baan ku dhaartay tiri, ninkaa waa nebi ilaahay oo xaq ah, waa nebi ilaahay oo run ah, amase inta iyo inta cirkii dhulkay ula jeedaa, inta u dhaxaysa ninka ugu sixirka badan waayo.
waa ninka ugu saaxirnimo badan cerkiyo dhulka waxa u dhexeeya qofka jooga ama waa nebi ilaahayo xaq ah. xaaladdaa markay martay arrintu saa ahayd yaa muslimiintu waxay bilaabeen inay qaar sameeyaan iyo weerar. mar kasta xaafadda gabadhu ay degan tahay way ka leexleexanayaan, waxba lagu samayn maayo. ma u jeedin beyti ragga idinka baqi maayaan, laakiin xikmad kalea meesha ku jirtee war hoy islaama. qoomkeedii oo dhan baa marsoo wada islaamay. gabar aad u barako badan oo cajiib badan bay ahayd. marka gabadhaa misaarkeedii bay nebiga iyo saxaabadiisaba ka weyse qaateen. waa mushrikad, gabar imraawo mushrikad markaa ahayd, misaarad ee markaa leedahay. xadiiskan waa dheeraa oo saasuu markaa ahaa. can anas ibni maalikin, anas ibni maalik radia allahu canhu anna qadaxa annebiy, nebiga weelkiisii ayaa inkasara jabay. weelkiiu nebigu wax ku cabahayay, haruubkii iyo ama qadax iyo weel nebiga uu lahaa ayaa jabay sala allahu calayhi wasalam. faاtakhada, markii uu jabayna faاtakhada wuxuu yeelay nebiga wuxuu yeelay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii weelkiisii marka uu jabay makaana shacbi, meeshii jeexantay ee shacabka iyo qarar ka galay, silsilad oo min fidatin qalin ah. silsilad qalin ah ayaa saa loogu dhajiyo markaa lagu sameeyey. akhrajahu lbukhaariyu ayaa xadiidka soo saaray. xadiidka bukhaari baa wariyo wuxuu tilmaamayaa rasuulka sala allahu calayh wasalam qadax iyo galaas ama weel uu lahaa ayaa jabay. mar allaala markii uu jabayna waxaa lagu dhajiyey oo lagu sameeyey meeshii shacab ka galay iyo jeexanka silsilad iyo cad gobol ahoo fida markaa ah. waxaanu soo tilmaannay weelasha qalinka ah iyo kuwa dahabka inaan lagu cunin laguna cabin. laakiin nebiga weelkii ka jabay, meeshii tirarka iyo jeexanka uu gaaray, silsilad fida ah ama gobol fida ah ayaa saa markaa loogu dhajiyey oo markaa lagu sameeyey. waxa la diiday marka ma aha xaaladda noocan haddii weelku noqdo ama inta uu jabo cad yaroo lagu dhajiyo ama qayb ka mida uu markaa leeyahay, ee waa mar allaala marka asaga oo dhan ama inta badan oo fida ama dahab markaa yahay, ama in yar oo ka mida haddii saa loogu dhajiyo haddii la isticmaalaa dhib kuma sugna. xariirta bacdamaa ragga laga mamnuucay oo loo diiday, rasuulka sala allahu calayh wasalam axaadiistu qaar waxay tilmaamaan inuu lahaa ama weystay jubbaddaasoo kumaynka meelaha gacanta ah iyo meeshoo kale iyo meelaha hoose ay ka yihiin xariir. wafdigana waa ku qaabili jiray sala allahu calayh wasalam, jumcahana waa u labisan jiray. marka dharka asagoo dhan wada xariir ah amase xariirtu ay ku badan tahay, taasaa mamnuuca oo markaa la diidaya. rasuulka sala allahu calayh wasalam weelkiisii baa jabay, inkasara. anna qadaxa annebiy, nebiga galaaskiisa ama weelkiisii ayaa inkasara jabay. faاtakhada wuxuu yeelay uu ka yeelay ama ka sameeyey rasuulka makaana shacbi, meeshii jabtay shacbiga iyo tirarka iyo jeexanka uu markaa gaaray, silsilad iyo gobol oo min fidatin fida markaa ah ama qalin ah. akhrajahu lbukhaariyun baa xadiidkaa wariyay. saa darteed muslimiinta waxaa wax badan lagu guubaabinayaa inay in badan iska ilaaliyaan weelashaa ilaahay diiday subxaana wa tacaala, waayo xagga aakhiray ugu dambaysaa. nolosha dhabtana waa nolosha aakhiro, nolosha runtaa waa nolosha xagga la aadi doono, meeshaasay ku cabi doonaan. maanta waxaad arkaysaa lagu faantamayaa wixii oo dhan dahabaa laga dhigaya qalin. ragga waxyaabaha ay wataan, rag baad arkaysaa silsilad dahaba markaa ay ugu jirto, gabar baa u dhiibtay. qaaraa faraati dahaba loo geliyey, weligii bixin maayo, gabar baa igu ammaanaysta ku leeyahay. saacaddii wuxuu wato waa taqaanaa dahab, gurigii sariiraha gobol ka mid ah waa dahab, waxyaabaha guryaha yaala badan waa wada dahab. saa darteed qofka muslimka ah waxaa loogu talagalay camal qabasho, waxaa loogu talagalay ilaahay inuu aad u ateeco. dahab wuu idiin dambeeyaa, waana laydinku labisi doonaa. qalin wuu idiin dambeeyaa, waa laydinku labisi doonaa. waxulluu asaawir buu dhahay ilaahay, jijimooyin fidaa ayaa lagu qurxinayaa. wasaqaahum rabbuhum sharaaban tahuura. marka nolosha xaqiiqda waa nolosha aakhiro. baabu isaalati الnajaasat,
najaasada zuulitaankeeduu baab u yahay iyo waa bayaanihaa caddaynteedaba. najaasada waxay tahay oo markaa la caddeeyo in markaa la zuuliyo. can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi su'ila waxaa la weydiiyey rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam can ilkhamri khamraa la weydiiyey ayaa la weydiiyey rasuulka sala allahu calayh wasalam tutakhadu khallan oo laga dhiganayo laga samaynayo khal ma bannaan tahay? qaala laa maya lagama samayn karo buu yidhi nebiga. akhrajahu muslim baa xadiid ka wariyey oo soo saaray khamradu waa xaaraan marka haddii la fiiriyo waana najaaso. ilaahay baa tilmaamay subxaana wa tacaala maraaxil dhowr ahna dadka waa looga reebay. isla markii qur'aanku hal mar kama reebin bacdamay aad ugu bateen xataa dadkii soo islaamay ee saxaabada gobolkoodna ay cabi jireen. ilaahay mar wuu tilmaamoo wuxuu yidhi waxa soo bixi canabka ah iyo mataqaanaa nakhiisha tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasanan, wax lagu dhacdhaco lagu sarqaamo iyo risqi xasan oo wanaagsan ayaad ka samaysataa. waxay ishaaraysaa khamradu risqi wanaagsan inaysan ahayn. waa la soo gudboo ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina wuxuu yidhi markay saxaabadu u yimaadeen nebiga oo ay weydiiyeen rasuulka allow khamrada iyo khamaarka nooga waran wayas'aluunaka can ilkhamri waalmaysir qul fiihimaa idmun kabiirun wamanaaficun linnaas. waxtarkeedii lama qarinin, dembi weynse waa ku jiraa. wa idmuhumaa akbaru min nafcihimaa, dembigoodaa waxtarkooda ka weyn buu dhahayla subxaana wa tacaala. waxaa loo cabiray inaysan wanaagsanayn. maalinna intay saxaabadu ka dhargeen salaad baan tujinaynaa ay dhaheen nin salaadii galay qur-aankiisaa u labisay asagoo dhanba qul yaa ayuha alkaafiruun acbud nacbud tacbud maa nacbud waxaan jirin yo meesha ka akhriyey. ilaahay baa soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الصalaaة waantum sukaara xataa taclamuu maa taquuluuna. khamre ha u dhowaani ee salaad ha u dhowaanina idinkoo sarqaan ah ilaa aad ka ogaataan waxaad sheegaysaan. waad u jeeddaa ninkasuu qur-aanku u akhriyey. markaasuu ilaah yidhi xataa taclamuu maa taquuluuna walaa junuban ilaa caabirii sabiil. taa waxay tilmaamaysaa in khamradu dhibaato ay u leedahay. cishaa'iga kadib ay cabi jireen, markaasaa ilaa salaad subaxna ay ka bixi jirtay, kadibna salaadda aygoo nadiifay tukanayeen. gebagabadii waatay soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysir walansaab waalaslaam rijsun min camali الshayطaan. waa nijaaso, waa xaaraan, waxaan fiicnayn, ka fogaada, waa camal shayطaani. fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun. taasaa markaa soo degtay. marka rasuulka waxaa la su'aalay su'ila rasuulu اllaahi can اlkhamri khamradii inay xaaraan tahay waa la ogaaday. tutakhadu khal laga samaynayo. tutakhadu ma laga samaysan karaa oo ma laga samaynayaa khamro laga samaynaya khal ayaa la weydiiyey. inta wax lagu sameeyo gacan loola tago yaa la khalaynayaa. qaala laa buu dhahay nebiga. wuxuu tilmaamayaa xadiidka khamrada iyo shayga xaaraanta ah haddii inta wax lagu sameeyo la warshadeeyo gacan loola tago wax lagu sameeyo ku khalowdo xalaal ma noqonayso. laakiin waxaa la tilmaamaa ayadoo iska taale iskeed hadday isaga qalowdo waa mowduuc kale. saasaa markaa la leeyahay nin baa rasuulka u yimid oy rasuulka allow khamraan haayaa ee qalma ka sameeyaa. maya buu dhahay. maxaan ku sameeyaa? daadi buu dhahay nebiga. rasuulka allow xoolo agoon waayo, agoona iskale ha lahaadaanee daadi buu dhahay nebiga sal allahu alayh wasalam. agoonka inuu diinta ku camalfalo waaye yaa xaaraanta u baneeyey. agoona iskaluu dhahay rasuulka ilaahayow, qub buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam. taa marka waxay tilmaamaysaa waxa noocaasa haddii xaaraan ay yihiin oo la rabo in la xalaaleeyo inaysan markaa noqonayn. akhrajahu muslim. wa canhu wa anas ibni maalik qaala wuxuu yidhi lamaa kaana markii ay ahaatay ama la gaaray yowmu khaybara maalintii khaybar amara rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu amray sala allahu calayh wasalam abaa talxa ninka abaa talxa la dhaho inuu naadiyo iclaan iyo ogeysiin inuu bixiyo. fanaadaa wuu dhawaaqay. maxaa la amray asaguna uu yidhi ina allaha ilaahi iyo wa rasuulahu rasuulkiisaba yanhayaanikum waxay idinka reebayaan oy idinka joojinayaan ay idinka mamnuucayaan can luxuumi alxumuri alahliyati. dameerka lagu magacaabo dameerka ahliga ah hilbahooda. dameerka ahliga waa dameerka dadka ay dhaansadaan.
dadkuu weheshtaa, dadkuu ku dhex jiraa. waxaa ka baxay meesha dameerka duurjoogee dameer farowga ah, ama dameerka ahligee ummadda ku dhex noolee la dhaansado. dadku biyuhu ay ku rartaan ay ku qaataan, hilbahoodu waa mamnuuc. fa innahaa rijsun, waa najaasoo dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam, muttafaqun calayh. dagaalkii Khaybar dagaal cajiib badan buu ahaa. muslimiinta aad iyo aad baa in badan loo caabiyey. waxay wax badan ku wareegsanaayeen xusuuntii khaybaraynta ay markaa ku jireen waa yuhuudda. mar allaala markii ilaahay u furay subxaana wa tacaala, gaajo fara badan ayagoo haysaa, dhibaato badan ayagoo kala kulmay, yaa ilaahay u furay subxaana wa tacaala. markay qabsadeen baa dameero fara badan meeshii laga helay. waa la gowracday saxaabadii, waa la qalay, hilbahoodii baa la googooyey, dheri baa la keenay, dabaa la shiday, waa la saaray. imtixaanka fiiri, aad baa laysku imtixaamayaa. weliba mar allaala markay bislaan rabeen oo hilbihii dameerku kareen oo maraqii uu si fiican u wanaagsanaaday, yaa amarkaa la soo bixiyey. rasuulkuna wuxuu amray dhiryaha in la afgembiyo, dhammaan dhulka lagu wada daadiyo. waa amari imtixaan. dadka waa la imtixaamaa. kooxdii ilaahay qur'aanka uu ku sheegay, falammaa fasala taaluut biljunuud qaala ina allaha mubtaliikum binahar. maantao dhan bay soo socdeen, waa la haraadnaa, webi baa soo dhowaaday. webigu hadday tagaan biyaa laga cabayaa, way haraad baxayaan. nebigii baa wuxuu ku yidhi, ilaah wuxuu idinku imtixaamayaa binaharin, faman shariba minhu falaysa minii. qofkii isku caba biyahayga mid ma aha. waman lam yطcamhu fainahu minii. qofkii laakiin aan cabin anuu iga mid yahay. ilaa man iqtarafa gurfatan biyadi. hal maro inta saaca usoo qaadato aad afka ku shubato waa lagu ogol yahay. waa dad haraadnaa. imtixaan baa layska qaada. iimaanka waa laysku imtixaama. yaa amarka alla qaatiy, yaa la diidaa la fiiriyaa. dad haraadan waaye markay webigii soo dul istaageen, fa sharibuu minhu ilaa qaylo minhu. way wada cabeen buu dhaha ilah subxaana wa tacaala, ilaa in yar oo ka mida ma ahane. saa darteed imtixaanaad baa yimaada. insaanka aamana loogama tago ilaa la iftixeeyo la imtixaamo ma ahane. saa darteed ayay wada cabeen. qoladaana waad u jeedaa, markii hilbihii dameerku ay u kareen oo ay layidhi bislaashii ay u dhowaadeen amaba ay bislaadeen, waa kanaa munaadi nebi, waa kanaa abaa talxa, waa kanaa dhahaya ilaah iyo rasuulkiisa waxay idinka reebeen hilbaha dameeraha, waa rijsi. hal maraa la afgembiyey, amarkaa la qaadana. waa dagaalamayna see waa rasuulka allow iyo annagu waa baa'annahay, waxa cunama haysana ma jirto. daadiya waa la daadina, qaata waa la qaadana. saasaa markaa loogu talagalay qofka iimaanka leh. wa canhu qaala, waa anas, lamaa kaana markii la gaaray ahaatay yowmu khaybara, amara rasuulullaahi, rasuulkii alla wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam abaa talxa inuu naadiyo. iclaanna uu ka dhex sheegay ogeysiis dadka mu'miniinta dhexdooda. fanaadaa wuu naadiyey, waana dhawaaqo wuxuu yidhi, ina allaha ilaahay iyo wa rasuulahu rasuulkiisaba yanhayaanikum, waxay idinka reebayaan, idinka nahyinayaan can luxuumi alxumri alahliyati, dameerka lagu magacaabo dameer ahliga. dameer ahli waxaa loogu bixiyey, dameerinsina waa la yidhaahdo insaanku ku dhex jiraa, waa la dhaansadaa, waa la haysaa, ummadduu dhoeshtaa. saa darteed dameerka hilbihiisa, fa inahaa rijsun, waa najaaso. muttafaqun calayhi. wa can camr ibnu khaarijata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi, khatabanaa rasuulu llaahi, rasuulkii ilaahay ayaa noo khudbeeyey sala allahu calayh wasalam bimina, mina ayadoo la joogo. waa xajatulwadaac. xajkii xajatulwadaac baa la taagan yahay, ummaddu way xajinayaan. rasuulku minuu taagan yahay, ummadduu rabaa inuu u khudbeeyo. wahwa asagoo calaa raaxilatihi, raaxiladiisa saaran, gaadiidkiisa ama heshiisuu rasuulku markaa saarnaa. wa lucaabuhaa, dhareerkeeduna yasiilu uu ku qubanayo calaa katifaya, labadayda garbood buu yidhi. akhrajahu axmed baa xadiidka soo saaray, watirmidiyun wasaxaxahu, oona saxiix yeelay. waa sida markaa uu sheego xadiisku waa saxiixo. ninkaa lagu magacaabo camr ibni khaarija wuxuu ka qayb galay xajkii nebiga sala allahu calayh wasalam. nebiga raaxilada iyo hasha uu saarnaa hoggaankeedana saasuu u hayaa, hoosteeduu taagan yahay, rasuulkuna hashuu saaran yahay. ummadduu rabaa inuu u khudbeeyo, khudbadii oo dhan u wada gaarsiiyo. dhareerka ka soo baxayey ayaa garabkayga ku qubanayay buu yidhi. waxay ku daaddaadanayeen katifaya, garbahayga.
xayawaanka gobol ka mida khaasatan xoolaha ayaa waxay sameeyaan wax la yidhaahdo wixii la cunay inay soo celiyaan mararka gobol ka mid ah. inuu maantoo dhan soo daaqo uu soo daaqo caloosha cooskii wuxuu soo geliyo yaa mindhiciradii wixii galay habeenkii asoona waxna coos u ag oolin yaad arkaysaa ridii iyo lo-dii iyo geelii ayagoo wax soo celinaya way calaajinayaan maantoo dhan haddana wuu geynayaa cabbaar buu fadhiyaa wuu dib uu soo celinayaa saa inay samaynaysay hashana waa la sheegay. kadibna dhareer ka soo qubanayay dhareerkii ka soo qubtay ayaa garbahayga ku daadanayay buu yidhi. xadiidku wuxuu tilmaamayaa xoolaha la cuno hilibkoodii caanahoodaba dhareerkoodu inuusan wax dhibaataa markaa lahayn, najaasana aysan markaa ahayn. nebigana ma uusan amrin camar inuu iska soo dhaqo, mana uusan u sheegin in najaaso ay gaareen. rasuulkuna wuu saarnaa hasha korkeeda. camr ibni khaarija radia allaahu canhu qaala khatabanaa rasuulu ullaahi, rasuulkii allaa noo khudbeeyey sala allahu calayh wasalam bimina mina anagoo joogna wahwa calaa raaxilatihi, asagana raaxiladiisa iyo gaadiidkiisa uu dul saaran yahay waa hashiisee. wa lucaabuhaa dhareerkeeduna yasiilu uu ku da'ayo ku daadaadanayo calaa katifaya garbahayga. akhrajahu axmed watirmidiyun wasaxaxahu wauna saxiix yeelay. wacan caaishata radia allahu tacaala canha qaalad waxay tihi kaana rasuulu ullahi, rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yaqsilu mid ka dhaqa almaniya manida ayuu ka dhaqaayey maradiisa, uma intaa kadibna yakhruju wuxuu ula baxayay maradii ila asalaati salaada xaggeeda, fii daalika athawbi isla maradaa ayada ah. maradii manida intay ka gaartay haddana uu ka dhaqay yuu salaada la soo aadi jiray. wa ana aniguna anduru aan dayahayo ilaa ahari lgusli dhaqitaanka raadkiisa oo fiihi marada meeshii markaa laga dhaqay, raadkii laga dhaqay ee dhaqitaanka ahar qasalka ah ee laga meeray raadkii biyihii ayadoo lehna aan u jeeday leedahay caaisha radia allahu canha. muttafaqun calayhi. wax dhibaataa kuma sugna marada ninka haddii haweentiisa ama xaaskiisa uu kula galmoodo, haddana haddii aynan wax ka gaarin uu markaa ku tukado. haddii ay ka gaaraanna sidaan oo kale nebiga wuu ka dhaqay sala allahu calayhi wasalam. kaaga sii daran raadkeeda ayadoo leh oo raadkeedii iyo buqcadii laga dhaqay oo qoyaanka uu leeyahay dhaqitaankiina oo nebigu la soo baxay anna aan markaa arkaayo. marka xaaladaa dhibaato markaa kuma sugno mashaakil ma laha. maradaa qofku wuu ku tukan karaa, qasadhahi maayo maradaa iska dhiga maro kale markaa qaado. caaisha radia allaahu canhaa qaalad waxay tihi kaana rasuulu ullaahi, rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yaqsilu mid dhaqa ayuu ahaa nebiga. waa ka nebigu wuu ka dhaqahaya maradiisa almaniya, maniduna waa biyaha yimaadaa. rasuulkuna inta badan sala allahu calayh wasalam ama sidiisaba waxay wax uga imaadaan ama meni waa mar allaala markuu ehelkiisa isticmaalo jimaacahaan. amaa la mid ma ahayn, ilaahayna wuu ka ilaaliyey inuu inta shaydaan u yimaado oo waswaasiyo kadibna ay wax ka soo baxaan sida dadweynaha kale iyo dhallinyarada caadiga oo kale. caawa laga yaabaa inaad seexato, qabowgii baa kaa batay, ama gabar baa maantao dhan kuu sheekaynaysay, markaa kadib baa habeenkii qofka qarow gelayaa, wuxuu soo baxayaa meeshii iyo maradii iyo wixii o dhan oo wada qoyaan ah. waxaasaa markaa yimaada. marka shaydaanku saasuu qofku ugu tallacubo ugu ciyaaraa. amaa rasuulka sala allahu calayh wasalam xaaladdaa ilaahay waa ka dhowray. haddii la yidhaahdaa waxbay ka yimaadeenna waa inuu jimaacelkiisa ugu tegey nebiga sala allahu calayhi wasalam. kaana rasuulu ullaahi yaqsilu lmaniy, manida ayuu ka dhaqaya maradiisa, uma yakhruju ka bacdina waa ka soo waa baxayey oo maradiiba wuxuu u qaadanayay ila asalaa salaada dhankeeda, fii daalika athawb waa isla marada. wa ana aniguna anduru aan dayayoon fiirinayo ilaa ahari lgusli dhaqitaanka raadkiisa oo fiihi maradu markaa ka dhaqay. muttafaqun calayh. walimuslim, muslim waxaa u sugnaa laqad kuntu waxaan ahaa afrukuhu mid xoqda waan xoqi jiray min thawbi rasuulillaahi, rasuulka maradiisa sala allahu calayh wasalam farkan xoqitaan.
mar allaala marka manidu ay ka gaarto saas uun baan gacanta ugu xoqi jiray ama cijiyada fa yusallii fiihi waana ku tukanayay nebiga wa fii lafdin lahu lafdi kaloo muslima wuxuu ahaa laqad kuntu waxaan ahaa axukuhu mid ka xoqda ayaan ahaa bay tiri caaisha yaabisan markay qallasho manida bidufrii cididayda min thawbihi maradiisa wax kale maba samayn jirinba dhaqitaan iyo biyo la dhaqay maba samaynayninba hadday qallasho oo meeshu ay ku engegtana cijida intaan saan ku dhoon ka fufujin jiray bay leedahay caaisha radia allahu canha marka taa waxay tilmaamaysaa in manidu aysan najaaso markaa ahayn bacdamaa bani aadamka laga khalqo qofkana ilaahay karaamiyey subxaana wa tacaala najaasa markaa ma aha waayo haddii najaaso ay ahaan lahayd laguma kaaftoomo najaaso in la jejebiyo keliya najaaso xukunkeeda waa in la dhaqaa najaaso xukunkeeda waa in la marsiiyaa xukunka diintu ay marsiisay ama hadday qoyan tahayna way iska dhaqi jirtay hadday qallashana cijideeday ku jejebin jirtay haddii la waayo raadkeeda iyo meelay ka baxdayna qofku waa ku tukan karaa maradiisa dhibaatana marka kuma sugna caaisha muslim xaggiisa waxaa uga sugnaa wali muslim laqad kuntu waxaan ahaa afrukuhu mid ka xoqi jirto waan ka xoqi jiray bay leedahay min thawbi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam farka xoqitaan iyo jejebin fa yusallii fiihi wuuna ku tukan jiray wa fii lafdin lahu laqad kuntu axukuhu yaabisan markay yaabis noqotay qallashana bidufrii cididaydaan ku xoqi jiray min thawbihi maradiisa intaasaanba uga suulin jirayba wa can abi samh radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala الnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala اllahu calayhi wasalam yuqsalu waa laga dhaqaa marada min bawli اljaariyati gabadha kaadideeda wa yurashu waa la rusheeyaa oo biya shab lagu siiyaa min bawli اlgulaami wiilka kaadidiisa akhrajahu abu daawuud wالnisaa'iyu wasaxaxahu اlxaakim xaakim baa xadiidkaa saxiix yeelo xadiidku waa saxiixo wuxuu tilmaamayaa ciyaalka yaryarka ah ee aan weli cuntada gaarin kaadida ka timaada najaasadooda wiil iyo gabar way kala duwan tahay wiilka laftigiisu waa najaaso waa najaaso khafiif ah baa la yidhaahdaa amaa gabadha najaasadeedu kaadideedu waa najaaso adag saa darteed baa cukaash bin muxsin ninka lagu magacaabo walaashiis waxay nebiga u keentay canug yar oo sabi ah oo markaa la dhalay nebigu wuu soo qaaday ilan dabeecadaha nebigay ka mid ahaayeen canuga xafaayad uma xirna nebiga jilbihiisuu ku fadhiisiiyey sala اllahu calayh wasalam fabaala marada nebiguna ku kaadiyey sala اllahu calayh wasalam marada nebiguu ku kaadiyey surwaalkaaga hadduu canug yariiska ku kaadiyo waa tuuraysaa maantao dhan qaylo hooyadii waa ku qaylinaysaa mashaakil iyo dhibaato waxaasoo ma aha nebiga maaha sala اllahu calayh wasalam si aayar ah oo tartiiba ayuu canugii u dhiibay biyo ayuu u wacday nebiga sala اllahu calayh wasalam hal mar buu saa ugu sayroo ku shubay yuqsalu min bawli اljaariyati wa yurashu min bawli اlgulaami gabadha gaadideedana waa la dhaqaa wiilkana waa la rusheeyaa oo ma u baanin gacan markaa la mariyo waa bishardi labadoodu ama canuga jinjaasadiisay saa khafiifka u noqotee wiilka ah inaysan raashin gaarin inuusan cunto cunin xabad buskuda hadduu cuno waa la dhaqayaa asagana waa intay radiicana nug yihiin waa inta caano uu yahay waxay markaa quutaan marka wiilka saasaa la yeelayaa oo saasaa loo biyo loogu rusheeyaa gabadha laakiin jaariyada waa la dhaqaa oo in gacanta markaa la mariyo xikmadaha ku jira ilaahay baa garan subxaana wa tacaala diintu waxay noo tilmaantay wiilkana in biyo laysaga sayri karo oo shab inta lagu siiyay kaaga filan tahay gabadhana markaa la dhaqo waxyaabo fara badan baa la sheegaayo qaar waxay yidhaahdaan gabadhu waxay ku qaangaartaa wax najaaso waa dhiigga xaydka wiilkan waxa uu ku qaangaaraa waa manidii haddaanu soo tilmaano najaaso ma aha taasaa keentay in wiilka biyahana shab lagu siiyo gabadhana gacanta la mariyo xaqiiqda ilaahay baa yaqaana qolo kale waxay dhaheen waa jacaylka ay inta badan dadku u qabaan wiilasha jacaylka markaa loo qabo ilan wiil marka la dhalo qofkii yimaada waa xambaaraya qofkii yimaada jilbuu saara qofkii yimaada kor u qaada ciyaalka yarkana wax ka kaadi badan ma jiro maanta oosan saasi markaa u shubaan 10 jeer baa xafaayadda laga bedelaa maalintii saa darteed ayaa cilmaha yaryarka ee wiilasha bacdamaa xambaarkoodu badan yahay
dadkuna ay mar walba qaadayaan si aysan ugu mashaqoonin darteed ayaa layidhi biyo shab isaga siiya. gabadha laakiin inta badan hooyihii aabbihii dhalay iyo in yar maahane qaadqaadkeed dad saa uma jecla. maca daalika waxay tilmaamaysaa markaa intaa loola jeeday oo xikmadda ku jirta ay ka mid tahay isku soo duuduub ilaahay baa yaqaan subxaana wa tacaala. yuqsalu waa la dhaqayaa oo waa laga dhaqaa marada min bowli ljaariyati, jaariyada waa gabadha kaadideeda. wayurashu waa la rusheeyaa min bowli اlghulaami, wiilka kaadidiisa. akhrajahu abu daawuud iyo wالnisaa'iyu wasaxaxahu اlxaakimu, xaakim baa markaa xadiiska saxiix yeelay. wacan asma binti abi bakrin, asma binti abi bakr radia allahu canha ana الnabiya salى اllahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi fii dami اlxayd, dhiigga xaydka oo yusiibu gaarayay asiibaya athawba marada, taxutuhu way xoqaysaa, uma taqrusuhu kadibna waxay ku jejebinaysaa bilmaa'i biyo, uma tanduxuhu bay ku rushaynaysaa marka maray biyay ku dhaqaysaa inta kale, uma tusallii fiihi kadibna way ku tukanaysaa. muttafaqun calayh. maanta oo kale ma aho maro loogu talagalay xaydkaa jira, maro loogu talagalay arooskaa jira, maro loogu talagalay jikadaa jira, maro loogu talagalay salaadaa jira. maca daalika cibaado la'aan baa la yahay. hal maraa la haystaa, halkaa maro ayaa mataqaanaa xaydna gaaraya oo laga dhaqaya oo lagu tukanayaa oo wax lagu aadayaa, jasadkoodana la arki maayo, waa la xijaaban yahay. dharkani waa kii hebel, kanni waa kii hebel, meel u qarsoonna malag dumarka maanta jooga. waa cawaaqib xumadana haysataa, waa dhibaatadana haysataa. sida loo dhar badan yahay loona dharaamaya kaala ark, sida loo dhar la'aa oo dadku gabdhihii hore saxaabadii ciriiri uga jireen loona xijaabnaa, rabbina loo caabudi jiray, khayrkana loogu dadaali jiray, wax isku dhigma markaa ma aha. gabadhan rasuulka sal allahu alayh wasalam, asma binti abi bakr, waxay ka sheegaysaa inuu rasuulku yidhi markuu ka hadlaayey dhiigga xaydka marada gaara, xaydka dhiigga marada gaara, gabadhu waxay samaynaysaa marka ugu horaysaa dhiigga meesha uu yaalo ayadoon biyana ku taabanin, wax kalena ku taaban bay keligii jejebinaysaa. ayada dhiiggaa keligii meesha adayga noqday dhiigu gaaray ayaad xoqaysaa. intaa ka bacdi biyo intaad soo qaadataad meeshii saa ugu shubaysaa, intaad ku shubtaad ku jejebinaysaa. haddana intaa wixii ka dambeeyana biyaad ku dhaqaysaa oo biyay markaa ku sayraysaa, kadibna way ku tukanaysaa. isla marada ayada ah way ku tukanaysaa. gabadha dhiigga caadada ku dhaca, dharka ay xirato najaaso ma aha hadduusan dhiigu gaarin. saa darteed haddaad maanta xirato xaydna uu ku hayo, aad suuqa ku tagto ood ku soo laabato, maradaada waa kuu daahir. haddii wax daahirnimada iyo najaaseeye aysan markaa imaanin, maxaa soo hara hadduu dhiig gaaro? haddii dhiig uu gaaro, habka rasuulka uu sheegay ayaa markaa lagu socodsiinayaa. saasaa markaa la samaynayaa. uma tusallii fiihi kadibna way ku tukanaysaa. muttafaqun calayhi. wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal, abu hurayra wuxuu yidhi qaalat khawla gabadha la yidhaahdaa waxay tihi yaa rasuula allah, rasuulkii ilaahayow, fain lam yadhab idamu, hadduu dhiigu ka tegi waayo ka waran. waa la xoqay oo maradii dhiiggii waa laga xoqay, waa la jijibiyey, biyo haddana lagu dhaqay, weli aahaartii dhiiggaa taagan. maxaa la samaynayaa? way dhici kartaa mararka gobol ka mida najaasa inta la dhaqo karkeeda in gacantaada ku soo haro, waa suuragal raadkeeda inuu weli kugu haro, laakiin adiga waad nadiifisay. gabadhan marka waxay tihi yaa rasuula allah, fain lam yadhab idam, hadduu dhiigu tegi waayo ka waran, macnaa raadkiisa weli uu sii muuqdo. qaala rasuulku wuxuu yidhi yakfiiki ilmaa, biyaa kaaga filan, biyaha aad ku dhaqdaa kaa kaafinaya. walaa yaduruki aharuhu, raadkiisana ku dhibi maayo, weligiisiisa ahaado, sidiisa ha ahaada. haddii aad mar dhaqday oo aad najaasadii goysay oo aad isticmaashood jejebisood biyo ku sii dhaqday, wixii tegi waaya oo meeshiisa ku haraa, biyahaad ku dhaqdaa kaa kaafinaya, raadkiisana markaa ku dhibi maayo. akhrajahu tirmidiyin baa xadiidkaa wariyey, wa sanaduhu daciif, sanadkiisuna waa daciif. in badan oo culimmada ka mida isku waafaqay inuu sanadkiisu daciif yahay. waxaa ku khilaafay baa yidhi albaani oo dhahaya xadiisku waa saxiix. saa darteed wuxuu tilmaamayaa xadiidku
haddii saa dambe aanu qaadana ilaahi subxaanaه wa tacaala in sha allah inuu saxiix noqdee yakfiiki ilmaa inuu qofku biyaha kaga kaafinaayo oo qofka mar allaala markii aahaarta najaasada uu nadiifiyo ee uu dhaqo wixii markaa hara ee bixi waaya ama raadkii najaasada qofku inaysan markaa dhibaynin waad ku tukanaysaa waad isticmaalaysaa wax dhibaatana markaa kuma sugnaa marka xaydka gabdhaha dhiigga ka gaara jirkooda amase gaara dharkooda saasay markaa ula dhaqmayaan saasay markaa u isticmaalayaanoo asma binti abi bakr radia allahu canha waxay marka hore leedahay dhiigga xaydkuu nebigu ka hadlay waa markuu maradu gaaro dumarka saxaabiyaadka ahaa waxay aad iyo aad ugu hormareen inay rasuulka weydiiyaan su'aalaanna waxyaabaha ku tacalluqa xaydka aad bay u weydiin jireen caaisha aad bay u su'aali jireen waayo caaisha waxay aad iyo aad u taqiinay axkaamta xaydka iyo waxyaabaha markaa la midka ah taasi kama kelifin kamana reebin inay diinkooda fahmaan inay tahaaraadka bartaan inay xaydka waxa uu yahay iyo sida uu yahay ay markaa kala ogaadaan rasuulkay u imaanayaan rasuulkii allow baab dhan buu noogu imaan doonaa haddii rabbi yidhaahdo oo lagu magacaabo baabkii xaydka ama dhiigga caadada intay u yimaadaan bay leeyihiin dhiiga iga socda rasuulkii allow maxaa sameeyaa rasuulkii allow dhiig talantaali oon kala go' lahayn ilaan gabdhaha saxaabiyaadka gobolka mida dhiig istixaadada qabay waxaa noo imaan doonta 7 sano gabar dhiig uu ka socday dhiig furan ah xaaladahaasoo dhan masaajidkay imaanaysaa way tukanaysaa gabdhaha gobolka mid ah baaf lugahooda hoostiisa inta loo dhigo ayagoo masjidka joogay salaada markaa tukanayaan maxay ka yaqaaniin kuweena maxayse ka barteen xaydkii waxyaabaha la midka ah kutubaha axaadiistee axkaamta ah dadku inay aad u bartaan waa lagama maarmaan mar allaala markaanu maraynay markaan maraynay muqadamada ayaanu ku aragnay kitaabka waxyaabaha ugu qiimaha badan in laga dhex heli doono waxyaabaha axkaamta adilada sharciga ah inuu ku dhex sugan yahay qof allaala qofka bartana fici inuu ka kor noqonayo kitaabkan qof allaala qofkii barta ee fahma ee sidii loogu talagalay u qaataa ficiisa dhan uu ka kor noqonaya aqaarintiisa dadka la da'da ah dadka la filka ah hada u kor noqonaya waryaa yaqaana xadiidka hebel baa yaqaana buluuqya akhristay hebel baa akhristay yaa saa oo kala soo bixi kara axkaamta hebel baa kala soo bixi kara xaaladahaasoo dhan baad noqonaysaa yaan la dayicin marka aad iyo aad ha loogu dadaalo waxa ku jira kitaabkan gudihiisa axkaam ah waa wax aad iyo aad u qiimo badan waa wax kuu horseedi kara janno inaad hesho waa wax kuu horseedi kara cibaadadaadu inay toosto waa wax kuu horseedi kara tahaaraad fiican inaad hesho asma fiiri radia allahu tacaala canha can asma binti abi bakrin radia allahu canha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu yidhi في dم الxayd xaydka dhiiga oo macnaha dhiigga xaydka oo yusiibu hawa marada gaaraya maradii markaa asiibay taxutuhu way ka xoqaysaa ثuma intaa ka bacdi taqarusuhu waxay ku jejebinaysaa bilmaa'i biyo marka ugu horaysa biila-aan xoq meeshii xaydku gaaray ka fufuji marada wax allaala wixii ku dhagay gaaray ka qaad meesha intaa ka bacdina waxaad ku dhaqaysaa ood ku jejebinaysaa biyo meeshii xaydku gaaray dhiiggaad ka xoqday yaa intaad biyo ku shubto yaad haddana keliya dhaqaysaa intaa ka bacdina waad rushaynaysaa marada inteeda kale amase waad dhaqaysaa oo biyaad ku dhaqaysaa intaa kadibna waad ku tukanaysaa muttafaqun calayhi intaa maxaa keenaayey waxaa keenaya dumarkeenna maanta waxyaabaha ay haystaan inaysan haysanin baa suuragala saxaabiyaadkii hore waxyaabaha aaladaha ah laga yaabay gabadhu inay maanta isticmaasho warqad yar warqadaasoo laga yaabo 3 maalmood hadday ku socoto marada inuusan dhiig gaarin ilaahay mahadii subxaana wa tacaala horumarkii wanaagga la helay intaa ilaahay ugu mahadiya subxaana wa tacaala waad u jeeddaa dhibaatada ay marayaan waad u jeeddaa su-aashay nebiga weydiinayaan idinka iimaan badan idinka taqwo badan idinka nadaafad badan idinka tahaaro badan idinka caabudid badan ilaah subxaana wa tacaala saa darteed idinkoo saa gaaray oo horumarkaa helay oo waxaasoo dhan la gaaray yaa salaad aan la tukanin aan la aqoon xataa axkaamta xaydka uma tusalli kadibna way ku tukanaysaa fii isla maradii muttafaqun calayhi wa can abi hurayra radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaalat khawla binti yasaar baa tihi yaa rasuula allah rasuulkii allow fain lam yadhab idamu dhiig hadduu ka tegi waayo ka waran maradii waa la dhaqay waa la jejebiyey xaydkii waa laga fufujiyey weli waxaa saaran aahaartii dhiiggii mausan tegin see yeelnaa
salaada ma ka joojinaa mara kale maa xiranaa mara kale maa qaadanaynaa say arrintu noqonaysaa qaala rasuulku wuxuu dhahay sal allahu alayh wasalam yakfiiki ilmaa biya kaaga filnaanaya biyihii baaba kaaga filanba sow ma dhaqin najaaso waa la dhaqaa qasab maaha markiina meesha ka wada fuqdee raadkeedaa laga yaabaa inuu go'i waayo mar allaala marka gobol ka mida laga yaabaa najaaso gacantaadii gaartay oo aad dhaqdood nadiifisay karkeeda inuu kaa go'i waayo waa suuragal la dhihi maayo qofku kuma tukan karo wax kale haddaad isticmaasho nadaafad ahaan saabuun iyo shaambo waxyaabo lamida waa gooni laakiin qofka haddii mar uu baabi'iyo najaasadii meesha ku tiilay hadduu ka zuuliyo najaasadii meesha ku tiilay oo mtaqaanaa sidii loogu talagalay uga nadiifiyo raadkeedu dhibi maayo yakfiiki waxaa kaaga filnaanaya almaa'a biyaha walaa yaduruki mana ku dhibayso buu yidhi rasuulkii alle aharuhu raadkiisa akhrajahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiskaa soo saaray wasanaduhu daciif waana saan markaas soo tilmaannay intaa ilaah subxaana wa tacaala waxaa axkaamtana loogu sheegayaa inaan aad iyo aad ugu dhowaano khayrkii wanaaggan aan markaa ku helno baabulwuduu'i baanu geli doonnaa balse meesha haynoo joogto wabilaahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.